arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa fanka waayadii hore nin waxaan ahaa heesaa ah markii dambana waxaan ku biiriyay cuudka inaan garaaco cuudka haddana waxaan ku biiriyay inaan laxamada sameeyo laxamadii haddana waxaan ku biiriyay inaan alifo alifaadda haddana waxaan ku biiriyay markaan Yurub imid in aan heesaha boorgaraameeyo logic habkan casriga aan u boorgaraameeyo hibanuura iskala heestaa aqaltir anti kaligi matagni haddaynan istaakul tabaryeelanayne katashada cadawo isku tiirsanaada anigu magacaygu waa Cabdi Baadil Ibrahim laakiin aabbo wuxuu igu yeeri jiray Cabdiweli hadda waxaan ku caanbaxay Cabdi Baadil waxaan ku koray inta badan Beledweyne Xamar iyo Beledweyne oo dhaxeeyay laakiin iskoolka dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe waxaan ku gaaray Beledweyne dugsi Quraan ka soo soco ubaxi kacanka ka soo soco markii dambe waxaan imid Xamar hirgelinta heesaha idaacadda bandhiga radio-ga ayaa waxaan ka dhageysan jiray tartan in uu jiro oo fanka ah waxaana la dhihi jiray heesaha hirgelay oo waxay ahayd heesaaga hirgelay markii dambe waxaa laga dhigay sida aan wadaan qaldanayn markii dambe laga dhigay heesaha hirgelay waa nin heesayo hirgelay markaas waxaa yiri ma ka qayb gashid oo aad hirgashidba marka hees caan ii ahaydoo markaa oo aan Beledweyne ku qaadi jiray oo aniga qad jiraan ama qaadi jiray oo la yiraahdo amran ayaan waxaan ka qayb galay tartanka heestaas waxaa la dhihi jiray amran arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa manara inkastoo markii dambe dhalinyarada cusub ay casriyeen oo ayaan u bixiyeen kadibna kaalinta koowaad aan galay kaalinta koowaad kadibna hoblada waa bariyaan ku biiray kadibna waxaan noqday laxamista caan ah oo waxaan ahay ninkii ugu horeeyay heestii sanadka qaaday heestaasi anigu aan laxamay ereyada Saad Cali ahayd naftayda ku jiraban waxay hayso jamashada adan ku jeelanahay jacayl baadigu abuurtay ninka laxamay ayaan ahaa afka qali